madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu samayn doono wax kasta oo suurto gelinaya in Israa'iil iyo Falastiiniyiintu ay gaaraan heshiis nabadeed. kulan uu la yeeshay hogaamiyaha Falastiiniyiinta Mahmoud Abbas ayuu ku sheegay inuu si dhab ah u rumaysan yahay in Mareykanku ka caawin karo labada shacab sidii ay rajo cusub u gelin lahaayeen gobolka. Falastiiniyiinta iyo Israa'iil ayaan wax wada hadallo toos ah yeelan muddo 3 sanadood iyo dheeraad ah. Trumpna wuxuu qiray in heshiis ay labada dhinac gaadhaan noqon doono mid si adag lagu gaadho. Ahmed Badar ayaa warbixintan inoo haya. ومالكي وجودن بيسيا بقشة ومدحوينها مريكا كومرا يبرق دحى هسه يشدان تقلبيد يا مريكا قزايا وحلا بدو بكر عيد بحيو عروة طول صور جيدو بقشة مدحوين ترامب مالنتي سنينتي أيام مدحوين ترامب وحاو موجي حرير كقطة ديريكا دحى مريكا كيا إسرائيل مدحوينها ودك مريكا كيا وحاو سوار كائنو يحي شخصي كوهابون إن هالشيس وكانوا إسلام مركان وكجود بكرو عقبضها ضد بدن كهريميدا أكدب وضح هذا الله ولا شيء مدحوينها فلسطينيين محمود عباس أي مدحوين ترامب وحاو شيء إن كجو أنتي مريكا كا إن هالشيس نبضت أي جيران فلسطينيين يا إسرائيل. I am truly hopeful that America can help Israel and the Palestinians. run ahaantii waxaan ku rajo weynahay in America ay ka caawin doonto Israa'iil iyo Falastiiniyiinta inay xal nabadeed gaadhaan oo ay taasina rajo gelin doonto gobolka iyo dadkiisaba. waxaan sidoo kale aad u rumaysanahay in Israa'iil iyo Falastiiniyiintu heshiin karaan kaasoo bilow u noqon doona hanaan nabadeed oo bariga dhexe oo dhan wada gaadha. arrintaasina waxay noqon doontaa guul weyn. The Middle East, and that would be an amazing accomplishment. إسرائيليين iyo Falastiiniyiinta ayaa waxay isku hayaan dhowr arrimood oo ay ka mid tahay mustaqbalka bariga magaalada Qudus, arrimaha qaxootiga Falastiiniyiinta iyo waliba arrinta xuduudda labada dhinac. hogaamiyaasha Falastiiniyiinta iyo Israa'iil ayaa waxa dhanka kale ku kala dhex jira kala shaki iyo isaaminaad la'aan. daanta galbeed oo ay ka mid tahay bariga magaalada Qudus ayaa waxa muddo 50 sano haysatay Israa'iil.